jaajuuska weyn ee magaalada Muqdisho ku nool ee magaciisa la yiraahdo Abdiisa Tijane maxaad ka taqaanaa Abdiisa Tijane waa ninkan sawirkiisa idin muuqdo misna social media ku joogo inuu yahay qof mir kala oo xanuunsan laakiin waa sirdoon weyn oo u shaqeeya dawladda Itoobiya Abdiisa Tijane ayaa la yiraahdaa 1748 ayaa sidaan oo kale dawladda Ruushka waxay howlgal sidaan oo kale ugu dirsatay dalka iyo Philippines nin sidaan oo kale naafo ah iska dhigay inuu yahay maskaxiyan laakiin se dawladda Philippines ay ku guuleysatay inay gacanta ku dhigto ninkaas jaajuuska sidoo kale taatikadan ayaa laga keenay dalka iyo Ruushka Abdiisa Tijane ayaa la yiraahdaa qabiil ahaan wuxuu ka soo jeedaa qabiilka Abiy Ahmed oo ka soo jeedo ee qoomiyadda Oromada ayuu ka soo jeedaa Abdiisa Tijane waa nin qabiir ah oo arimaha noocan ku xil dheer waa nin aan la dhayirsan karin waa nin kala mahmaanka dawladda gacanta ay ku soo dhigaan Abdiisa Tijane waa nin qabiir ah waa nin aan inaba aan caadihin wuxuuna jaajuus yani waxaana wadamo badan loogu diray inuu soo jaajuus waxa kamida dawladaha Burundi Uganda Bangladesh Chile ayuu qayb badan oo ka soo qaatay arimo sirdoon marka yaa la dhayirsan dawladda Soomaaliya hadii gacanta waa inay ku soo dhigaan ninkan oo baaritaan guud lagu sameeyaa Abdiisa Tijane